أفر وناس رمضان مبارك مدن وزير مدن التريال بعض الصحافة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جعلنا عنونا كهالله وحن جعلنا عنونا كهالله أما وربحين كوبان إذا كسيو حولها أمان في حسلنتا مقالة مقدشو waxaan rabaa in aan u mahad celiyo dhammaan ciidamada isku dhafka ah ee ka kala socda nabad sugidda booliiska iyo militariga ee maalmihii la soo dhaafay howlaha istarajoogga ee amni sugista ka hay magaalada muqdisho kuwaas oo guulo waaweyn laga soo hooyay runtiina shacabka ku nastay waxaan jeclaan lahaa inaan qof iyo guud ahaanba aan u mahad celiyo waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa degan magaalada muqdisho ee howlaha socda ka qayb qaatay gacan ka geystay u dul qaatay ayagana waa mahadsan yihiin waxaan jeclaan lahaa in aan idin sheego haddii aad tihiin shacabka in dawladdiina iyo ciidamadiinu ay midaysan yihiin una taagan yihiin howlihii loo egmaday oo ah in ay sugaan ammaankiin oo ay cabsida ay idinka ilaaliyaan oo magaaladan muqdisho muddo dheer daruufo adag ayay soo martay meel kawaan ah oo dadka lagu waxyeeleeyo oo lagu dilo oo maalin kasta iyo saacad kastaba dhiig qof muwaadin oo Soomaaliyeed oo dambiile ah oo aan wax uu galabsada la arko oo ku qubtay uu ahaa waxaan rabnaa meel raxmadeed oo nabadeed oo Soomaalidu ay ku faantaysan ka faanan inay noqoto wajiga ay leedahay inaan ka bedelno waxaan rabnaa magaalo nolol iyo nabad ay ka jirto inay noqoto taas waxay u baahan tahay marka arrin loo dhanyahay oo laga wada shaqeynaayo oo dawladda qaasatan ciidanka ku howlan howlaha ammaanka gacan in laga siiyo loo dul qaato haddii ilaahay yiraahdo marka waxaa la rabaa annaga shaqada aan qabanayno shaqo niisa ma ahan shaqo booliis ma ahan shaqo military ma ahan ee waa shaqo si caam ah xukuumadda ugu egmatay ciidamadaas isku dhafka ah marka sababta hadda inta aan u taaganahay waxay tahay inaan muujino sidaan howlahaas aan ugu midaysannahay oo aanan ugu kala raaricin oo qolo qaasa oo loo tirinay aysan jirin ciidanka iyagu wuxuu ku shaqeynayaa duruuf adag marka waxaa la rabaa in lala fahmo oo lala shaqeeyo dardaaranka aan rabo inaan u soo jeediyo wuxuu yahay ciidanku inuu si fiican oo asluub leh oo naxariis leh shacabku ula dhaqmo haddii shacabku uu arko qaladaad iyo gafaf iyo waxyaabo hadda aanan loo baahnayn annaguna waxaan ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan saxno Roma was not built one day ama arrinkan hal maalin lagu masaxi karo hana loo dul qaato waxaan rabnaa oo kaleeto ciidamada howl ay ku jiraan hawshaasna howl laga gorgortamaayo ama qof loogu turaayo ama qof hadda loogu dan lahay ma ahan qof kasta oo ay farsoo gasho iyo qof kasta oo ay joojiyaan waa inay ciidamada la shaqeeyaan una hoggaansamaan amarkooda magaalada waa la socotaan howlaha ka socda waxa go'aamiyay golaha wasiirada howl aniga iyo General Saacid iyo General Cirfiid Jamaal Cirfiid ay go'aamiyeen maahan annagu waxaan nahay dad amarkii un baan fulinaynaa marka wax hadda la shakhsiyadaynayo maahan magaaladan annaga kama rabno tuuto qoray daba jeexa cabdibile ordaaya ciidan socda meeshaan xero dagaal ma ahan meeshaan waa caasimad waxaa laga rabaa inay noqoto inay yeelato waji caasimad meel nabada oo dadku oo si nabadahoo yani ii sheegan kalsooni ku jirto oo ku maro ciidamada marka haddii ilaahay yiraahdo marka howlo bilaabato isqabqabsi iyo iska hormaadi wax waa jiri doonaan laakiin waxaas waxaa laga rabaa si degan oo xigmado ku jirto oo walaalnimo leh oo Soomaalinimo oo la isla fahmaayo in loo gudbo dabcan intaan howlaha ku jira caqabadaha yimid caqabadahaas ayaana kalifay inaan maanta aan meeshaan imaano qof ama haweenaada ama hayraada loogu dulqaado doono inuu qashqashaado howlaha ammaanka ma jirto waxaan rabaa qof ku gaba karta magac ciidan ma jirto qof ku gaba karta magac mas'uuliyad dawladeed ma jirto qof kan bari noqon karta ciidankaas ma jirto amarkaasna waa amar guddiga amniga qaranka iyo golaha wasiirada ay bixiyeen waxaan rabnaa marka si magaalada nabad ay u noqoto waddanka oo dhan nabad u noqdo ciidankaas in la shaqeeyo haddii annagu aan iska adkaanin oo ciidamadeenna iyo dadka howlwadeennada ahayd dawladda ka shaqeeya aan ka adkaanin oo aanan dhaqan dawladda aan u yeelin shabaabka iyo cadowga iyo dadka dalkaanu inuu ilxun ahaado oo weligiis meesha uu joogo ka kicina kama adkaan karno
haddii ilaahay yidhaahdo marka howluhun hadda soo socdana dabcan waxa aan bilaawno waa bilaaw si xoog badan ayuu bilaabmi doonaa marka waxaan ka codsanaynaa guud ahaan si xoog badan micnaheeduna waxay tahay meel iyo qof loo turaayo in ammaankaas la sugaana ma jirto haddii ilaahay yidhaahdo dabcan dareen badanaa jiri karo oo la leeyahay dadkii madaxda ayaa ilaalinaya habkii lagu ilaalin lahay oo ammaankooda lagu sugi lahay ma dayacayno mas-uuliyadeennana kama gaabin doono madaxda iyo mas-uuliyiinta qaranka waa la bortogarayn doonaa waa la difaaci doonaa iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed annaga dadka aan la u shaqaynayno oo caway maalin u taaganahay oo sharaftooda inay soo noqoto aan rabno oo inay nabad ku afuraan aan rabno inay nabad ku noolaadaan aan rabno oo ay walwalaan magaalada aan ku joogno waa dadka degan waay ee hadda qof si gooni ammaanka maraad uga lama jirto haddii ilaahay yidhaahdo annaga muddo kooban waxaan rabnaa magaalada zero gun in laga dhigo qoray la'aan in laga dhigo shakhsiyan aniga ammaan waxaan aqaanaa inuu ka bilaawdo qorayoo la dhigo inuu ka bilaawdo dawladda awood leh inuu ka bilaawdo cadaalad jirta inuu ka bilaawdo inaan ilmaha aan daba soconno oo aan ciyaal shabaab oo masaakiin aan ceersano lama rabee dadka lama taabtayaasha ah oo dalkan ishaan u yeelay meel kasta ha joogaan ama gudaha jooga ama dibadda jooga in la farsaaro haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaan rabnaa in waxna la fahmo ciidanku mas'uuliyadiisa waa gudan doonaa aniga shakhsiyan nin u turaaya shaqada lay diray inaan qof aan u horsaag ma jirto dad badan soo qabyaaladaynaya hawsha dad badan weji kala yeelanaya annaga shabaab iyo shabaab eke dawlad diide waa la diriraynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa magaaladan labadii maalmoodoo la soo dhaafay nabadda iyo naruuraha laga helay inay sii xoogaado inay Soomaaliya dhan ku fido waxaan rabnaa cadowga in la kufsado ma rabna asagana ka adkaa rabnaa waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu